السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغالكي أكتوبر غيبتيسي أفراد waxay ahaayeen dabaabadaha Israa'iil mid dhex socota shaarica. Waxaan dareennay amni annagoo eegaynay awoodda horteenna joogta. Waxaan dareennay in nala ilaalinayo iyo in aanan dhibaato cadow nafeen u soo banbaxayn. toddobiyo labaatankii Sebteembar waxa ay soo gaareen ciidanka gargaarka Israa'iil marinka Suways iyagoo ku nagaan doona muddo bil, waana muddada ay isbedeli doonaan ciidamada ku nagi meeshaas. Waxa ay dhufays ka dhigteen dhufayska Burkaan oo ka mid ah xadka difaaca ee Baarleef. Waxaa ciidanka ka mid ah General Afiyafi, waana injineerka codka xiriirada Israa'iil. Si degdeg ah waxaa dhacay arrin yaab leh. Waxaan dhinaca Masar ka aragnay maraakiib iyo madaafiic gaaraysa. Waxaan arrinkii gaarsiinay madaxdii naga saraysay, waxayna noo sheegeen inaanan werwerin. Waynan u jeesjeesay, waxaana hoos iska nidhi, waxaanoo roonaan lahayd inaan iska aamusno. Se ahaataba arrinkan si dhab ah uma aysan qaadan. waxa uu arkay Afiyafi, waxa uu ahaa tababar uu ciidanka Masar samaynayay, waana dhooltus uu sanad walba uu sameeyo ee wax kale ma ah. Waxaan cadowga u isticmaalnay waxa la yidhaahdo qorshe dhagreed. Waxa ay u baahnayd arrimo fara badan, argagaxgelinta Israa'iil, annagoo tababarka sidii u habboonayd u gudanay. waa uu guulaystay qorshihii. Waxa uu saadaad ku daadiyey 10,000 oo guutooyin ah agagaarka kanaalka Suways, iyagoona wata hub iyo agab lixaad leh. Washington iyo Tel Aviv waxa ay xaaladoodu ahayd walwal la'aan. waxaan arrinka loo nisbayn karaa inay Israa'iil kaga saraysay Masar militari ahaan, taasoo ay Israa'iil ugu suurto gashay gacantan u fidinay darteed iyo dadaalkoodii, iyo inay lahaayeen hay'ad sirdoon oo awood badan, annagoo dhagaheenna ay ku soo laalaabanayeen inay dhibaato ku sugan yihiin. Annaguna waxba kama aanan werwerin, balse khalad weyn ayaannu galnay. saddex maalin ka hor bilaabmadkii dagaalkii Oktoobar, waxa uu saadaad xafiiskiisa ugu yeeray Vladimir Vinogradov, safiirkii Sofiyeetka u fadhiyey Masar, waxaana uu dhiibay dhambaal sir ah kuna socotay Moscow. waxaa Masar joogay tiro badan oo la taliyayaasha Sofiyeetka ka mid ah, gaar ahaan magaalooyinka Xalwaan, Aswaan, Najacil Xamaadi iyo Iskandariya. waxa uu saadaad yidhi, waxaan bilaabayaa dagaalka, mana doonayo inaan nolosha Sofiyeetka u soo banbixiyo khatar. sidaa oo ay tahay, go'aan qaadashadu waa xaggiin. haddaad doonataan in la idin daryeelo iyo in kale, waajibkayguna waa inaan idin ogeysiiyo. waxa uu saadaad fayday sirta Masar ee qarsoonay si uu u sii jiro xiriirka uu la leeyahay Sofiyeetka. isbuucyada soo aaday, isla maalinkii waxa uu aaday Ismaaciil Cali, wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Saadaad, dalka Suuriya, si looga tashado wakhtiga dagaalka la qaadayo. qorshuhu waxa uu ahaa in weerarka la qaado 6 Oktoobar duurka ka bacdi, balse waxa ay ku heshiiyeen in weerarka la qaado duurka kadib 2 saac oo 8 saaca baarihii noqonaysa. waxaa yeeray qalabkii isgaarsiinta 6 saac oo habeennimo, mase waxaa khadka ku jira Ashraf Marwan oo Ingiriiska jooga. waxa uu doonayaa inuu la kulmo si dhaqsi ah Sinigrat Samir, madaxweynaha Mossad. waxa uu yidhi, waxaan doonayaa inaan kula kulmo, waxaana ku heshiinay oraha afgarasho ah uu igu yidhaahdo marka uu doonayo inuu igala hadlo mowduuc ku saabsan dagaalka, waana ereybixinta aan ugu naqaano ereyga afgarashada.
dhambaalkiisii ma uusan isticmaalin ereyadii afgarashada ah ee aan ku heshiinay, iyadoo dagaalku uusan bilaabmayn maanta, beri dambe, saa dambe iyo saakuun, balse waxa uu doonay si dhaqsiya leh inaan Ingiriiska ugu kulanno. muddo aan badnayn kadib waxaa Talaabiib soo gaaray waraaqad ka socotay qoysaska Sofiyeetka. Maalinkii 2 oo 5 Oktoobar ku beegan waxa ay Golda Meir isugu yeedhay xubnihii xukuumaddeeda ka tirsanaa kulan degdeg ah. kadib markaan ogaaday qoysaska la taliyaasha Sofiyeetka oo guuraya, waxa uu fahmay Moshe Dayan xaaladaas inuu dagaal soo food leeyahay. waxa uuna yidhi waxa ay Masar qorshaynaysaa inay weerar lama filaan ah nagu soo qaato, balse qorshahoodu waa uu fashilmay oo annaga ayaa ogaanay. balse annagu arrinka ayaa badnidiisii waan la fagurnay, balse gunta xogta umaanan dhumban oo gudaha umaanan gelin. qaabkaas ayuu midkeenna go'aan degdega uusan u qaadan. looma yeelin askari ka mid ah ciidanka, taas oo ay sabab u tahay cabsi laga qabo Maraykanka. arrinka ma aysan ogeysin Golda Meir iyo Moshe Dayan ciidanka, oo waxa ay ka wateen qorshe siyaasadeed. 2 sano ka hor 1971 waxa ay heshiis qarsoodi ah ay ku saxiixdeen Golda Meir iyo Henry Kissinger hotel ku yaala Washington. waxaan yeelnay fikrad ah in Israa'iil ay haysato dhulalka ay qabsatay sababo amni darteed. muqaabilka waa inay weerarka daayaan. waad fahmaysaan waxaan ula jeedo. hadduu soo kordhaa jawaad waa inaysan weerar uga falcelin. waxay awoodaan inay nafahooda difaacaan hadday la kulmaan weerar oo keliya. waxa ay bilaabeen ciidankii inay amarkii fuliyaan. saacaddii weerarka la qaadi lahaa waa ay soo dhowdahay. waa kaa Samiir madaxa Muusaad jidka haya si uu ula kulmo Ashraf Marwan oo ku sugan London. balse halkaan Israa'iil dhammaantood waxa ay ku qanacsan yihiin jaajuusku inuu la wadaagi doono haddii ay Masar weerar qorshaynayso 18 saac ee soo socda. waxaa agteena ahaaday mug nagu fulan oo xog ah si aan u hubinno handadaad nagu soo food, balse waxaan sugnaa waa Zanigra Zamir. si kadis ayuu waqtigu isku gurayaa. waxaana noo dhiman oo keliya 10 saac oo aan diyaargarow ku samayn karno. diyaargarowgaasna waxa uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee aan galno. qaahira maalinkii 5 Oktoobar waxa ay ku dhowdahay dhammaad, waana maalin soon. waa kaas madaxweyne Saadaad uu masaajidka ku tukanayo. xusuus qorkiisii waxa uu ku yidhi Saadaad, waxa aan sugayay beri maalin uu dagaal caalamiya bilaaban doono, waana waxa aan suuraysanayay in maalin maalmaha ka mid ah ay dhici doonto. dhowr saac kadib waxay ku toostay Golda Meir dhawaaqa telefoonka. waxa uu la kulmay Samiir. Ashraf Marwan waxa uu ogaal u yeeshay Samiir xog bedeli doonta habsami u socodka bariga dhexe. 6dii galabnimo maalinkii Qufraan waxaa bilaaban doona dagaal isbeddel kaga tegi doona adduunka iyo bariga dhexe. xalqadii koowaad wata asxaabta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.